waxay noo soo haray haddaba alxaamil walmurdic gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmaha nuujinaysay iyaga waxoogaa baynu hadal ka wada yar dheerayn doonaa inagoo ishaari doonaa hadal qowl markaa iska shaada ama cidda ku tagtay ay yar tahay oo laakiin laga yaabo in dad badan tashuush loogu furayo looga dhigay markaa qowlka saxda ah ayaynu caddayn doonaa insha allahu tacaala sida aanu sax u ahayn قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون مقطع قرآنiga ayaa waxaynu ugu dhimanaa asagaasaynu maanta dul istaagaynaa inagoo isku dayaynaa inaan muujinno fiqiga iyo fahamka saxaabadu qodadheeridiisa iyo inta wanaag iyo fahan iyo cilmi ay dheeryihiin qayrkood si kastoo loo bambooniyo qayrkaas waxaynu soo maray sayidina ibn Cabbaas iyo ardadiisii khaasatan reer Xijaaz Saciid Musayib Saciid ibn Jubayr Ikrima iyo asagu inay oran jireen aayadan waxay ku soo dogtay khaas ku tahay odayga waayeelkan soomi karin haweeneyda duqowdeen soomi karin gabadha xaamilada ah midda wax nuujinaysa afarta ruux ee aayadu wali u tahay muxkamo oo lama nasakhin bay oran jireen xukumka hore ahaa ruuxa soomka awoodi kara ee qaadirka ah ama ha soomo ama fidya ha bixiyo in la nasakhay wuu ogol yahay imaamku ibn Cabbaas laakiin wuxuu leeyahay aayadu barkeed baa mansuukha barna waa muxkamo aayadda wali waxaa ku soo haray oo la nasakhin buu leeyahay odayga waayeelka ah iyo haweeneyda waaye ee duqda ah gabadha uur kale ee soonku dhibayo midda ilmaha nuujinaysa ee soonku dhibaya ama lafeed ha u cabsato ama ilmaha ha u cabsato نزلت هذه الآية في الحبلى والمرضع والشيخ والعجوز ساس أورنجري ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا حافظ حجر فتح وحود هذا مذهب ابن عباس وخالفه الأكثر كاسوا مذهب ابن عباس وذا ذهب بدن كون وي خلافه جمهور وين صوم الرين يقبان ayadu inay mansuuqo tahay jumlatan wa tafsiilan oo wax laga soo rabay aysan jirin odayga waayeelka ana iyo haweeneyda soonkaan xamili karin da awgeedna baxthi kale iyo asal kale loo cuskanaya wadaaduna iskuma waafaqinba odayga waayeelka ee da darteed la soomila haweeneyda weyn ee da awgeed la soomila soonku inuu fididu waajib ku tahay mas'ala la isku waafaqayba ma aha wadaada qaba inay sunna u tahay oo waajib ku ahayn sida maalikiyada wadaadana waajib ay ku tahay waana sida loo badan yahay marka aayadu waa mansuuqa iyo ku tageeno faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ayaa lagu nasakhay bay taageen jumhuurtu ama ibn Cabbaas iyo jamaaca min asxaabi ardadiisi kamida halkaas ay ku tageen marka aayada iyo nadariyada sayid ibn Cabbaas iyo ardadiisu abxaad dhowraynu tilmaamayna baxdiga koobaad waxaan leenahay fitriga afurka loo afuro cudurdaar saddex qaybood way quraanku intuu sheegay sunnaduna tilmaantay culimaduna ay ku ijmaaceen afurid ramadaan la afuro oon la soomin cudurdaar dartiina loo soomin saddex qaybood buu noqdaa qaybta koobaad waa cudurdaar inaad afurto kuu bannaynaya qadana kugu waajibinaya inaad afurtana waa kuu bannaan tahay oodan soomin hadhow markuu soonku dhammaadana qado unbaad la imaano inaad soo qallayso maalmihii kaa tegay unbaa lagaa doonaya qaybtaasi waa musaafirka iyo mariidka qaybta noocaasa alfitru licudrin yuujibu alqadaa'a lilfidya waxaa weeye waa cudru lmusaafiri walmariid nin socdaalay oo socoto oo safar bilaabo oo muslima iyo ruux xanuunsan weeye ayagu waxaa loo ruqseeyey inay iska afuraan hadhow markuu ramadaan dhammaadana maalmihii ka tegay ay soo qalleeyaan qaybta labaad waa fitrun yuujibu alfidyata duuna alqadaa waa cudurdaar keenaya inaad iska afurto fidye keliyana aad bixiso lagaama rabo qada lagaama rabo
وأنا عذر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، عذر الشيخ والشيخة الكبيرين. وحوي وايلك لب يددك با دا أوجد لسومي واي، دا أوجد لسومي واي. كوا يجو حلقة رباؤون إني فدي اللي مادا قضى لقى مربو، قضى لقى مربو. وأمرك إنه مروع علماء كوا جبينيا لبي ددك با دا أوجد قفك لسومي واي إن فدي واجب كوتا يقوليها قبوي. وأنا رأي الجمهور، وأنا رأي الجمهور. لبدا عذردار واد قراتين. عذردار كصدحات ومد مختلف ولا اسكو خلاف سنة هاي، وأنا طمانت إنه مسائل كالتلمام دون إن شاء الله تعالى. وفطر والفطر لعذر لسكو خلافين ما قضوا واجبين يا ماي مفيديو واجبي يسمى ما لسكو دريه. ومد كان مختلف كا وعذر الحامل والمرضع هوينيد وافرتي بش رمضان أوردرتي وولع وليس بي مريسا بش سقالات بي جوجتا أدو أوركا درتي بي لسومي ويدي حنون كيمد أما عبسي أي نفتدو عبسطي أما إلمها أورتشيفك وبقضي أما وينو تشيليسا يو تاق دري كبقيسا أما إلمها عانا يراين يكون دعضو عانون وإسبدالها وين ما كيسونتوي باهطوي أونتو عانه هذه الدعوة باقارة هي علمها عافمات كيسيبا هي نولشي سيبا gabadha uurka leh iyo tan naaska nuujinaysa ilmaha oo inagii inay saddex xaaladood mid ahaan bay ku sugan tahay inay nafteeda soonkii uga baqanayso iyo inay ilmaheeda uga baqanayso iyo inay labadaba u baqanayso. haddaba markay labadaba u baqanayso waxaa la haleeshiinayaa oo la raacinayaa markay nafteeda u baqato nafteeda ka asala kol haday nafteedii u baqatay waxba la eegi maayo ilmaha miyay u baqanaysaa mise uma baqanayso. taa nafteeda u baqatay dee aayadda qur-aankaa bay gelaysaayo faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra qofkii xanuunsanaya ama safar ku jira baa la yidhi qallaa lagu leeyahay. tan nafteeda qofka xanuunsanaya markii la yidhi culammadu waxaan muran ku jirin qof imika xanuunsanayo xanuunkiiba hayo iyo waxa kale aayadda soo galaya qof markuu soomo dhibaatada ku imanayso. qof aan hadda xanuun bahaynin laakiin markuu soomo soonkii dhibaato ka soo gaarayso aayadda uu soo galay faman kaana minkum mariidan tuu soo galay qofkii xanuunsanayay ee xanuunku hayay ama ka baqanayay weey. xanuunkuna dee waa wax kasta oo jirkii dhibaato ku keenay. haddaba dee gabadhan markay soonto iyadoo ilmihii jaqaya ama uurkaba leh nafteedii u baqanaysa aayaddaa bay gelaysa faman kaana minkum mariidan taasay gelaysa. sidaa daraaddeed qallaa lagu yeelanaya. culammada qaarkoodna khilaaf la-aan baabay yidhaahdaano yacni waxa weeye xaaladdaa iyada ah muranba kuma jiro gabadha in qallo lagu leeyahay. waa qaabka uu maawardi u dhigo مغني ابن قدامة رحمه الله تعالى إمام كاسنا ومركا وتصريحية أما وعضية بلا خلاف بين أهل العلم نعلمه وحمرنا وعلماء النحو ذا كتشرا متشرا بولي حالة ضائية إن قلقوا كواجبي محايا لو حاد كوكا صارتو قف مركو الصوم الله جايبا إنه مركا ودا كتعبانا يؤان حملين iyo gabadhan uur kale ama ilmaha nuujinaysa markay soonto aan soonkii xamilaynin wax alliyala waxaad ku kala farqisaa ma jiro. labada mid walba naftiisu u baqanaya. aayaddaasuu markaa soo gelay. waa xaaladda koobaad. xaaladda labaad ee aanay nafteedii u baqanaynin nafteeda u baqanaynin ee ay ilmihii oo keliya u baqanayso. خاطيرتي بقى كنت لإلمه وكاسو بعضنا يا هدي أد أفحد ناتب أما إلمه بقى ناس كي عاربة كهلينين تينو شليسي وإلمه بقى مركا الله بقنا إياه. إيضانا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضا وحا أي هذين هرتقله واللقولية waxa kale oo lagu leeyahay bay yiraahdeen
iطcaam inay cid cunto siiso quudiso maalin walba ay markaa raashin ka bixiso qallihiina waa lagu yeelanayaa raashinna way bixinaysaa haweenayda ayada ah ee xaamilada ama ilmaha nuujinaysa in ay u bannaan tahay inay afuraan waa masalatu ijmaac waa lagu ijmaacay wax khilaafana kama taagno inay afuraan oo afurku u bannaan yahay oo xamliga iyo irdaacu dhibka keenaya ama loo baqaya in la afuri karo waa masalatu ijmaac laakiin maxaa la isku maandhaafay maxaa laga rabaa labada dumarka ha afureen soonkina ha ka tageen hadhow markuu soonku dhammaado ama intuu socdoba maxaa laga rabaa qole waxay yidhaahdeen waxaa laga rabaa qade inay soo qallayaan maalmihii ramadaan 30 beri ama 29 beri ama maalmihii dhaafay hadday soonkii wuxuun iskaga dayeen oo qolyaha waxay xaamile iyo murduca raaciyeen oo ay ka dabageeyeen musaafir iyo mariidkii bay ka dabageeyeen qole waxay dhaheen maye qada lagama rabee gabadha xaamilada een soomi karin ama gabadha ilmaha nuujinaysan soomi karin fidyo bay bixin kafaara gud bay bixinaysaa maalin walbo ramadaan kooba raashiina kiila raashin ay bixinaysaa 1 kiilo bariis ama kiilo ugaaliya haddii suugadeeda lagu darana waa iska sadaqaya khayr laakiin waxa waajib ku ah waa inay miskiin afuriya ay miskiin quudiyaan maalinka ayada maalin walbo ramadaan miskiin bay quudanayaan ama raashinkoo caydinaysiin iyo waxay ku karsan lahaayeen ama way u karinoo isagoo bisil bay siin wadaada isku dhibana waa jiraan bisaylka kuwa qaydinka isku dhibana waa jiraa laakiin saxaabadu waa itlaaqeen in miskiin un la quudiyo quudintuna iyadoo ingegin haddii lagu siiyana waa quudin hebel raashin baan siiyey kaasaba u dambadan qaybna waad shiidan qaybna waad iibsan qaybna booshaad ka dhiganaysa in lagu kariyana laftirkooda muxumo oo dhibki iyo qiiqiba laga qaado in la jimleeyina la jimleeyna waa mas'ala kale oo dadku rabino kadan culays malaha qole waxay yiraahdeen xaamilo iyo murdico waxa laga dabageynaya waa yeelkii ku xugum yihiin ninka odayga ah ama hooyada weynaatay in darteed la soomi karin bay ku xugum yihiin oo fidoon bay bixinayaan madhab saddexaad muxuu leeyahay labada la iskugu darayaayo hadday ilmaha u cabsatana waa mas'alo hadday lafeedu u cabsatana waa mas'alo hadday lafaheeda iyo ilmaha wada cabsatana waa mas'alo waxa la iska rabaa qadi iyo fidyo oo maxaa jira marka la soo gaabiyo nadariyada waxay noqotay haweenay xaamilo ah ama ilmo nuujinaysa mawaayeelkii baa la raacinaya mise musaafirkii iyo mariidkii baa la raacinaya mise waa asal mustaqil oo madax bannaan oo waayeel la raacinaynin hee mariidna iyo musaafirna la raacinaynin qolyaha yidhi qada laga rabaa waxay raaciyeen musaafir iyo mariid qolyaha yidhi fidyo basa laga rabaa waxay raaciyeen waayeelkii qolyaha yidhi waa la iskugu darayaa markii la gaaro shaafici xanaabila warka qaba meel khaas wad ogtihiin waxay yidhaahdeen waa asal mustaqilo murakkabun min al-aslayn al-ulayayn min al-aslayn al-awwalayn wa murakkab meel fidya waajibaysay oo waxay ahayd waayeelkii meel la qada waajibahayo oo mariid iyo musaafir baa isku soo qabo xaamil iyo murdic feeraha u gali bay yiraahdeen marka qoliyahaas waad faantay warkooda nariyadooda waa qoliyaha u dhib badan ra'yigooduna u daciifsan yahay baxdiga inaad faanteen bay la tahay waa ta'siilka masalada inaad faantaan usuusha iyo azimatul masaa'il